فورم كأن هاي هذا وحفيز كسبيه جود ويصدري لعبت سحر تأفرت يسدح كون أضل لا وحكي سحر محكمة قبل كلامك الله بيلا بعتن أفرتني سدح يججب يراك سحر هل كلا بكون سدح هي لبعتنك بقول إيه كنتم كون إيه ججب سحر يعني وا لعاق أفرشن الحجبر كبدن لعاق سحر garsoorku inuu lacag laga yahay qofku hadduu maanta dhaqaale haysan tusaalahan qof guri laga haysta 90kii iyo wixii ka dambeeyay dalka marburaa ka dhacay gurigiisa la haysta wuxuu ku nool yahay wayna dhacdo waan 400 jeer inuu yimaadaan wuxuu ku nool yahay buusho degaya gurigiisa faras magaalada ku nool ku yaalane qof haysta qofku intuu ku waxa laga yaabaa hantida uu ku dacoona 1 milyan joog waxaan ka soo sheekeynay miisaaniyada iyo dabcan dhaqaale yarida iyo aan ka soo hadalnay waxaa jira maxkamaddu waa institution service bixiya waxaa jira marka qarashaad iyo dakhli ay soo maxkamaddu soo saarana jira tusaale ahaan maxkamadda gobolka gala laga fura galka qofka laga furo waa khidmad loo sameeynaa dakhliya la yiraahdaa wuxuu bixiyaa lacag uu bixiyaa waxaa lagu shubaa sanduuqa wasaaradda maaliyadda ee maxkamadda sanduuqa midaysan ee wasaaradda maaliyadda lagu shubaa waxaa jirta isbedel arintaas ka dhacay halkan xafiiskan markii aan nimiday waxaa jirtay in qaabka maaliyadda ee maxkamaduhu ay si cashwaa'i ama aanay u nidaamsanayn waxaa jirta waagaas inay noo muuqatay inay maxkamaduhu ay noqdaan maxkamado iyaga lagu kalsoona karo oo maareeya dakhliga iyo hantida soo xeroota oo ku saabsan dhaqaalaha ka soo gala in maaragtay ay xeroto waxaan sameynay wasaaradda maaliyadda la xiriirnay gudoomiyaha maxkamadda sare hogaaminaya arintaas hogaaminaya iyo gudoomiyaasha maxkamadaha waxaa la soo saaray waxa la yiraahdo tariifa la soo saaray ama taariifadii markii la soo saaray waxa la jaangooyay serviceka maxkamaduhu qabtaan iyo khidmada dul saaran khidmooyin marka waxaa jira tusaalahan gal markii la furanayo qofka saboolka iyo qofka dhaqaalaha haysta ma isku mid ay noqonaan masasoo dabcan wasaaradda maaliyaddu waxay jaangooysa gal wax la yiraahdo in lacag laga qaado $200 oo badaniya dacwad si loo furto furashada dacwadda waxaa laga yaabaa waxaa jira mabda qaanuuneed marka مبادئ قانونية جرت أنا طبعا وحن كملنا أدونك كملنا هاي مبادئ جرت مبادئ سوحة كملنا قرصورك إنه العقل عيه مجانية القضاء قرصورك إنه العقل عيه قفك هدونا ما أنت دخله هيسا توصلها قفك جور لجاه هستا سجاشن كي يوحي كده بدل كمر براك داعي جور جيسي على هستا وحكونول يا وين العدوان بقول جري نوي ماذا وحكونول يا بوش ودكيه جور جيسي فرس مجالها كونول كويا لني قف هستا qofkii intuu ku waxa laga yaabaa hantida uu ku dacoona 1 milyan joog laakiin asaga caaw wuxuu ka soo kacay buusho ka soo kacay waa ku iimaan wuxuu ku leeyahay hantidaana la iga haysta dokumentigeedina waa kana waa haysta waxaan u baahan wax lacag maanta 200 ee galka lagu furanayna iska ma bixin karo marka aad fiiriso duruufta waa ka muuqata waxa lagu qasbaya marka dawladnimadu maadaama ay tahay service ummadda in lagu ilaaliyo hantideeda dadkina lagu kala celiyo ay tahay qofkaas waxa loo sameeyay wasaaradda maaliyadda waxay soo saartay iyo garsoorku waxay isla jaangooyeen in foomka loo sameeyo foomka saboolka la yiraahdo foomkaas waxa laga buuxinaa qofka codsanaya muxuu ahaa in lacag haysan oo sabool loo furo waxa laga qoraa marka hanteedii uu leeyahay waxa muxuu ahaa duruufaha haysta baahiyada income ka soo gala waxa laga buuxiya gadaalo ka saxiixa waa loo furaa waxa dhacaysa marka isla qofkii asaga ah inuu hantidii yeeshay waa loo xukumo fulinta xukunada maxkamadda waxa laga rabaa 1% laga rabaa 1% ayaa laga rabaa 1% markii laga rabo guriga qofkii shala sabool galka loogu furo maantana dhaqaalihi wali guriga waa laga haystaa wali bushka ka soo kaca hantida waa loo xukumo xukun warqadeed oo haystaa wixii lagu wareejiyo wali waxa hadana oo soo qorana ku qasban yahay inuu yiraahdo wadno aan shal wixii waa la xukumo waxaan haystana ma lahan buushana ka soo kacay xalay wixii aan cunay ayaa diriska iyo qaaraameen waxaan u baahanaa dhulkayga si lagu fuliyo in maxaan ku yiraahdaa la sameeyo arintii muxuu ahaa sabool waxaa jira marka mashaakil fara badan oo dadweynaha Soomaaliyeed waa taqaanaa dad saboola
يعني markii la fiiriyo yani dakhli fardiga wax la yiraahdo ama qofka dhaqaalaha soo gala in la yiraahdo $2 soo gasho qofka Soomaaliga soo gala marka iyadoo mabdaas qaanuun laga duulay wasaaradda maaliyadda waxay jaangoysay in form la helo formkaasna lagu jaangooyo wixii sabala waxa jirta marka maxkamadaha 2022 qarasha soo xiroodo dabcan waa la heli karaa xafiiska xisaabiga guud waa laga heli karaa wasaaradda maaliyadda waa laga heli karaa 2022 dhaqaale soo xiroodo 23 markaan nimada dhaqaale kala soo xiroodo hadda 24 oo bisha Agosto la maraan dhaqaalaha soo xiroodo waagi 2022 formka aan haay hadda oo xafiiska xisaabiga guud oo soo diray lacagta soo xirota $43,000 waxay ka soo xirtay maxkamadda gobolka 2022 43 iyo jajab yara ka soo xirood halka 2023ka 150,000 iyo jajab soo xirood yani waa lacag 4-6 jibaar ka badan lacag soo xirood hadda sanadkan oo aan marayno Agosto aan maraynana aad sanadkii hore aad uga fara badanta maxkamaduhu marka dakhligii ay soo xiroonayeen wasaaradda maaliyadda ay toos ugu dhacaano wax meel kala mari kara ma jirto saas ay tahani ma helaan rani koostigi ku filnay oo shaqada ay ku soo lahayd baahidii in laga jawaabay ahayd muxuu ahay inta soo xafiiso furan 30 garsooro hadda la soo howlgeliyay waa inay howlgalaan la rabo oo dekreeto madaxweyne ku soo baxay oo loo rabo in budget loo helo budgetkii lama hayo waxaan rabnaa marka si duruufaha garsoorka dawladda hadda maqasho dawladda garsoor waa meesha maanta laba qof intiis tagaashitalta la kala saaro waa garsoor dawladnimada Soomaaliyana si kalsooni ay u hesho hadii aan garsoorka wax laga qabanin wax weyn dawladnimada ay tiri oo soo kordhina ma jirto xukuumaddu waligeed ay jirto waa jiri doontaa service ay qabataa boolisiga dalka ka shaqeysa istiraatiijiyada horumar ay ka shaqeysaa laakiin cabashada iyo mashaakilka iyo muxuu ah dadka tabashadooda iyo cadaalad ijtimaaciga wax la yiraahdo meesha lagu xalahay waa garsoorka hadii garsoorka marka kungal laga furo oo kungal oo haysan wax oo hugato oo aadna haysanin qadi aadna haysanin oo qalankii aadna haysanin caqabada iimaanay waxa istaaga shaqadii ay hadinay socoto marka arinta oo in lagu baraarugo mudan oo madaxda dalkuna dabcan waa ku baraarugsan aad u baraarugsan yihiin laakiin in lagu tartarsiyo ay tahay waxa waaye garsoorku shaqo fiican inuu qabtay marag ma doonto waa dadweynaha Soomaaliyeed la weydiin karaa idinka dhaxay karaa idinka soo waa karaa in hadda wax isbedelaan iyo wax isbedelaan laakiin maadaama 2022 dakhliga ka soo xiraana 43 kun dhan 2023 oo 6 jibaar oo noqday waxay atrina koosiga inay helaan maadaama garsoorka oo dhaqaale soo xiray rani koosino helo shaqada lagu wado maadaama shaqada ay balaaranayso cagsiga marka waxa jira xaqana dhaqaalihi la shubay wuu bat intana dhaqaalihi waa yaraada la soo gudbinay marka arintaasna waa caqabad oo garsoorka haysata oo mushkilada oo u baahan in la xalliyo